waana salaamay daawadayaal maanta waxaan rabaa inaan idin sharaxo filim lagu magacaabo Three Idiots Cabdilaahi Qadar official subscribe saaro waana ku maasantahay daawashada muuqaalkeena Farxaan waa 30 sano jir diyaaradda ayuu saaran yahay diyaaraduna waa ay ka cirabtaa qof ayaa soo wacay war la yaab la ayuu u sheegay isla bartanka diyaaradda oo ka cirabta ayuu kursiga ka kacay si uu haweeneyda shaqaalada ula hadlo korintaas wadna xanuun ayaa ku soo booday dhulka ayuuna ku dhacay beeloodka diyaaradda ayuu dib ugu celiyay runwayga Farxaan banaanka ayaa lagu cararay isagoo saaran kursiga curyaamiinta hadaba waxaan arkaynaa indhaha isagoo kala furaya been ayuu ka sheegay wadna xanuunka kadib intaas waa uu la boodbooday si dhakhtarka uu tusay inuu fiican yahay korinta uusan cararin wuxuu ordayay waa guriga Raajo oo saaxiibkiisa una sheegay warka ku aadan saaxiibkoodii saddexaad Raajo in magaalada uu ku soo laabtay Raajo waa uu la yaabay laftiisa sidii Farxaan oo kale uu dhaqsaday wuxuu xirtay shaar dhanka kalena kaba isagoo gacanta ku wata ayuu la kulmay Farxaan uu soo hilmaamay hoosgashigii wali saaxiibadu ma aysan danaynin arintaasi inuusan hoosgashi markaas soo xiririn waxa uga muhiimsan inay la midoobaan saaxiibkoodii Raajo hadaba waxa dhacday in isku koleejka dhanka injineeriyada ahaayeen waxay la kulmeen Shaatoor oo aad u la xifaaltami jireen dhanka koleejka Shaatoorna wuxuu isku bedelay inuu sharadkii u sheego ku aadanaa 10 sano kadib inay kulmi doonaan 5 September markaasna la arki doono cid guuleysatay qof walba runtii sharadkaas uu hilmaamay Shaatoorna waa uu xusuustaa isla goobtii ay mar kale ku kulmeen halkaas ayuu ugu cadeeyay madaxweyne ku-xigeenka inuu ka noqdo shirkadda Regulate Corporation millionaire-na uu noqday ma aysan danaynin guushiisa waxa kaliya ay doonayeen waxay la kulanka Raajo ayay rabeen inuu cadeeyaan maxaa yeelay sanadii uu koleejka ka tagay ayaa ugu dambeysay isku day fara badanna waa ay waayeen iyagoo garaaci raba Shaatoor ayaa waxa dhacday in maadaama waqtiga uu ka lumiyo uu sheego Simla inuu ku sugan yahay saaxiibkoodii Raajo ayna halka wada aadi doonaan dhanka nolosha marka loo eego saaxiibada Farxaan iyo Raajo waxay yihiin kuwa aan horumar ballaaran sameyn mana danaynayaan hadaba dib waxaana loo tusayaa waqtigii Farxaan uu fasalka ama koleej ku soo biiray sanadka cusba runtii hal qol ay isku jireen Raajo iyo sidoo kale Farxaan waxay hayeen kuwa dhibaatadooda haysata maxaa yeelay ma uusan doonayn Farxaan injineer inuu noqdo aabiis ayaa ku qasbay halka Raajo uu ka cabsanayo mustaqbalka diiradana uu saaray waxa taagan Raajo waa uu ka duwanaa dhamaantooda maxaa yeelay isagu waxa uu markaa jirtay in ay ardayda ugu sarsareysa koleejka ay dhibaateen jireen habeenka koowaadna waxa dhacday si dhaqan ku ahaa in markaa ragga wiilasha cusub ee la qaawiyo taasoo way marka ay ku tixgeliyaan kuwa waaweyn ee iskoolka habkii ayana mareen dhammaan marka loo eego saaxiibada kale balse qof walba wuxuu raacayay dhaqankaasi Raajo waa uu ka duwanaa Raajo qolay isku soo xiray wuu diiday inuu banaanka u soo baxo hogaamiyihii ugu sareeyay iskoolka wuxuu leeyahay waan ku garaaci doonaa taasoo keentay ninkii inuu ku horkaadi rabo albaabka Raajona wuxuu keenay farsamo uu markaasi koronto ku ugu rakibayo qaandada kadib markii uu albaabka ku kaadiyana korontadii ayaa ku dhigtay wayna ku qosleen aadna way uga heleen fikradda Farxaan iyo Raajo waxay ayaan kuwa markaa aad uga helay wayna ku wareereen shakhsiyadda Raajo oo runtii ka duwan intaas kadib waxa haddana la barayaa ninka dhinka ka koleejka Viru kaasoo loo yaqaan Ferris ardayda inta badan ninka waxay aaminsan yahay in noloshu tartan ay tahay ardayguna loo baahan yahay tartankaas inuu ka qayb galo si markaas uu guuleysto Ferris waa uu neceb yahay waqtiga loo lumiyo sidoo kalena sababta darteeda wuxuu u xiran waayay gulismanka shaarka tayga xitaa uu iska suraa waxaana sanadkii ugu horeeyay ardayda dhacday in hadal uu jeediyo qalin ayaa jira macalinkiisa uu siiyay qalinkaas wuxuu sheegay in uu cirbixiyeen lahaa saynisyahanadu ay curiyeen sanadana researchkiisa ay ku jireen si loo awoodo in dhanka space-ka wax loogu qoro hadaba ardayga aan caadi ahayn ayuu guddoonsiinayaa 20 sano ayuu hadda macallin yahay ardaygii isaga ka wanaagsanaada waa Ferris wuxuu ku fakarayaa in uu siiyo hadalkaas wuxuu u jeediyaa arday walba oo college ku soo bira runtii wali ma dhicin arday markaas su'aal weydiiya balse Raajo ayaa noqday ardayga kaliya ee markaas ka yaabiyay ee su'aal weydiiya Raajo wuxuu weydiiyay sababta cirbixiyaanada ay ugu isticmaali waayeen pencilka oo ay isticmaalayaan qalinka taasoo keentay runtii inuu yiraahdo dib ayaan kaaga jawaabi doonaa su'aashaada waxayna runtii ahayd kadib su'aashaasi mid wiilka shaqaalaha lagu magacaabo millimeter Raajo uu amaanay su'aasha uu weydiiyay Raajo lacag ayuu siiyay wiilkaas si uniform ugu soo iibsado maxaa yeelay wuxuuna kula taliyay in iskoolka fasalku doono uu galo shakhsiyadiisu wali waxay tahay Farxaan iyo Raajo kuwa marka ay ka heleen arintu waxay tahay inay dhibaato sababayso Raajo laakiin lamid ma aha ardayda kale maxaa yeelay professorku wuxuu weydiiyay su'aashiisa qaaska jawaabteeda qaaska ayuu helaa macalinku inta badan wuu ku qaldamaa isna wuxuu u diraa dhanka fasalka hasaatee Raajo waxa uu yahay mid fasalada kala fariista marka laga soo saaro fasalka isagu ma ah diblooma taa beddelkeeda waxa jirta 10 la yaab leh oo dhanka nolosha ah nasiib ay leedahay inuu qof kale marka uu ka barto wayna jeclaanayaan isla dhanka koleejka wiil kale oo Roy la yiraahdo ayaa isna wuxuu yahay mid dadaal badan wuxuu curiyay qalabkaas runtii macallin Ferris isagoo kama uusan helin taa beddelkeeda aabiis ayuu waxuna sheegay wiilkiisa inuu qalin jabinaynin warkaas niyad ayuu ku rida aabaha Ferris laakiin ma suusan danaynaynin taasoo keentay Roy in uu isagu ahaa mashruuciisa mid tuura balse Raajo ayaa wax yar kadib mashiinka hel una sheegay in mashiinkan wax yar uu ka dhiman yihiin isbuuciyo kadibna uu dhameystiray kadibna diyaaradii droonteed waa ay duushay waliba kaliya si ay iyagu u arkaan banaanka ay qolka uga baxeen iyagoo goobjoog u ahaa waxaan lagu fakari karin inay sameeyaan intii lagu guda
guda jiray dhanka iyo duugta Ranju wuxuu Faris u sheegay Roy in markaasi uu isagu qaarijiyay systemka cadaadiska ee ardayda marka loo eego shakhsiyadooda warqad ayuuna u qoray Farxaan Ranju iyo waalidiinteeda kuwaas uu sheegay Ranju inuu saameyn ku yeeshay inamadiisa Farisna markaasi uu rabo in jalka uu geliyo maalinka xigtay aabaha Farxaan ayaa soo wacay kadibna Ranju wuxuu weydiiyay in wiilkiisa uu ka fogaado balse Ranju uu iska indhatiray isagoo arkay sawiraanta xayawaanada ay darbiga markaa ku dhagan Farxaanna waa uu doonayay inuu noqdo sawir dhanka xayawaanada inuu qaado marka loo eego injineeriyada waa biis uu raadinayo Ranju wuxuu isku dayay in aabaha uu ka dhaadhiciyo hasaatee way ku fashilmay kadib intaas waxay aadeen guriga Ranju halkaas ay soo ogaadeen qoyskiisa nolol faqiirtinimo ay ku nool yihiin aabi sariir uu saaran yahay runtii walaashiisna ay weynaatay oo aysan qofna doonayn inuu guursato mas'uuliyadaasi ay dusha kaga dhacayso Ranju waana sababta inta badan mustaqbalka uga cararo saaxiibada waxay ugu talagaleen halkaas in ay markaa xaflad martiya tagaan ay ku soo raaxaysteen raashinka sidoo kalena gabar lagu magacaabo Biya iyo saaxiibkeeda ayaa waxay ka wada hadlayaan saacad iyagoo ku wada sheekaysanaya wiilkaas Suhas ayaa la yiraahdaa waa nin aad u jecel waxyaabaha markaa kadibna wuxuu rabaa inuu iyadu guursado balse Ranju wuxuu Biya u sheegay waxa uu ku fakarayo Suhas iyo sidoo kale in markaa ay kabiisa wax ku shubto taasoo u cadeyn doonto inuu aad u jecel yahay maryaha kaba iyo saacadaha Suhas runtii wuu ilmeeyay markii kabiisa lagu tuuray taasoo keentay ama baabi'isay arintii Ranju shakhsiyadiisa Biya waxa ay ahayd mid markaa ka hesha waxaana aabaha Faris uu isagu markaa ardaygan ku arkay dhanka iyo arooska taasoo keentay inuu ku xanaaqo Faris gabadhiisa weyn ee Biya waxay u sheegtay aabeeda wax ku saabsan saddexdaasi iyo dhibaatada habeenkii ka hor imtixaanka Shatur waxa uu ahaa mid isagu magasiinka dadka adultiga lagu soo qoro qof walba oo qolkan wuxuu isku dayay in uu sakeelin Ranju runtii isagu la yaab ayay ku noqotay wuxuuna go'aansaday in uu 10 baro maalinkaas Shatur waxa lagu casuumay hadal uu ka jeedinayo goob sadaqa dhacda taasoo runtii u ahayd in dhanka luqadda uusan aad markaa u fahmaynin erey ahaan ma uusan garanaynin Ranjuna waxa uu bedelay qaar ka mid ah ereyada qoraalkooda sida naasa iyo sidoo kale aflagaadada dhacdadii intii lagu guda jiray Shatur wuxuu adeegsaday ereyo caay xilliga uu hadalka jeedinayay dhibaato ayuu la kulmay isagoo xanaaqsan ayuu sharad kula galay 10 sano kadib isagoo darbiga ku qoray 5 September taasoo uu la jeedo in ay kulmi doonaan lana arki doono qofka guuleystay Biya iyo Suha waxay joogaan dhanka iyo dukaan lagu iibiyo dahabka halkaas oo saacad qaali markaas uga iibinayo tijaabo ayuu ku sameeyay ugu talagalay bal saacada inay weydo Suhaas wuxuu gabi ahaan baa mid iyada ku canaanta taasoo markala keentay in markaa uu jecel yahay maryaha iyo kabaha iyo saacadaha wayna kala jabeen oo xiriirkooda halkaas ayuu ku burburay Ranju waxa uu ahaa mid wacay si uu u goysiyo Ranju aabiis in qalal uu ku soo degay taasoo Biya keentay in guriga Ranju ay tagaan kadibna aabaha isbitaalka loo soo qaado noloshiisa ayuu badbaadiyay waxa looga mahad celinayaa aadna ugu xun yahay saaxiibka Ranju oo aad markaa saaxiibadiisa u daryeela waxayna bilowday inay jeclaato waxa la daabacay semesterka imtixaanka Farxaan iyo Ranju iyagu waxay galeen ardayda ugu hooseysa runtii way ku faraxsayeen marka loo eego inaysan ku fashilmin xitaa la yaab ayay ku noqotay Ranju in booska koowaad uu ku soo baxay Shaturna booska labaad Faris waa uu necbaa Ranju mar walbana waa uu ka xanaaqay sawir ay si wada jir u galayaan marka loo eego ardayga kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad ninka galay oo ay markaa ardayda kale la safan doonaan Ranju iyo Farxaan simla ayay gaareen Shatur ay halka kula kulmeen si ay markaasi Ranju ula kulmaana isla dhanka gurigiisa ayay aadeen waxaana dhacday Ranju aabiis inuu geeriyooday inay ogaadaan subaxnimadaasi qof walba runtii tacsida ayuu joogay warar ayay ku noqotay ninka la sheegay Ranju waaba qof kale sawirka ayaa dana college-ka fiiriyeen waaba qof kale oo ka duwan dib ayay markaa ugu soo laabteen baarka iyagoo talaabada xigta ka fakaraya hadaba waxaa dhacday in uu jiro ama uu la soo hadlay Shatur nin Seenisiyaana Wanga Dul yiraahdo kaasoo u sheegay heshiiska $1 milyan inuu ugu maalgelinayo shirkadda isbuuc xigtana labadooda ay markaa iyagu ahaan doonaan Seenisiyaankaasi kuwa markaasi la kulma hadaba sababta ay rabaan inay ogaadaan Ranju in markaasi shakhsiyadiisa la xaday ay guriga u tageen waxayna weydiiyeen ninkii been abuurka Ranju ninka dhabta qori ayana markaa uu ku soo qabtay taasoo keentay Shatur in goobta fulinimo uu ka cararo Farxaan iyo Ranju iyagu waxay aan kuwa markaa aan cararin waxayna qaateen aabiisa geeriyooday dambastiisa taasoo ay musqusha ku shubayaan hadii kalena xaqiiqda uu sheego kama dambeystii xaqiiqda ayuu u sheegay Ranjuga saxda iyo ninka meesha college-ka aaday la joogeen inuu ahaa ninkii beerta u waraabinay wiilkiisa oo lagu magacaabo Joto kaasoo u isticmaalay Ranju shaqadiisa inuu qabto una barto wax isaga Ranju aabiisa waxa uu rabay in Joto uu ogolaado in uu sii wado hasaatee wuxuu u baahnaa waxbarasho Ranjuna wuxuu u baahnaa degree taasoo Joto keentay inuu dib ugu soo laabto kadib markii uu qalin jabiyay maxaa yeelay ballanqaadka ma uusan ilaalinin inta bedelkeeda Ranju iyo Farxaan waxay heleen hadaba ciwaanka kadibna meesha ayay ka tageen si mar labaad u raadiyaan hadaba waa sanadkii u dambeysay dhanka college-ka waxaana dhacday in marka ay aad isugu dhex wareersan yihiin kadib 2 bilood waxaa dhacday in hadal ay ka jeediyeen ardayda cusub ee markaa la qortay Faris Farxaan iyo Ranju ayuu si ula kaca u aflagaadeeyay dhanka kale waxaa jirta inuu ugu yeeray kuwa losers oo shaqo heleenin runtii wuu ka xaraabeystay horta
qof walba saddexdooda habeenkaasi waa ay cabsanaayeen xanaaq darteeda. haddaba raanjo oo cabsan ayaa u cadeeyay Farxaan warqad in boorsada ku aadan in uu yahay nin jecel dhanka iyo sawir qaadista uuna ka shaqeynayo. dhanka kalena Raajo ayuu yiri waa inaad joojisaa ka walaacida mustaqbalka. Raajo iyo Farxaanna ballanqaad ay u sameeyeen. Raanjo waxa iyaguna ay ku amreen inuu jecelkiisa u dhigto biya. intaas kadib gurigii macallin Faris ayuu aaday isagoo dhanka qolka galay. Raanjona wuxuu halka ugu tagay iyadoo oo jiifta balse dareenkiisa ayuu u soo bandhigtay waana marka uu ogaaday inuu la hadlayay gabadha uur kale ee walaasheeda Mona lagu magacaabo. haddaba runtii way ka yaabisay ilaa ugu dambeyn sida ugu dhaqsiyan Faris uu soo kacay xilli horta guriga uu ku kaadinay uu ogaaday wajiga Raajo ilaa tahay mugdi inay cabsan yihiin hurdo ay uga soo dhacday dhanka fasalka. saacado kadib markii ay soo kaceen qof walba waxbarasho ayuu ku jiraa. Faris fasalka ayuu joogaa. runtii waxa la ogaaday Raajo inuu weli cabsan yahay xilli habeenkii u dambeeyay ahaa. Raajo weli waxa looga yeeray dhanka xafiiska taasoo loo sheegay in marka laga eriyo iskoolka. haddaba fursad labaad si ayuu ku yiri balse uu iska indhatiray taasoo keentay in noloshiisa uu ku dhaqaaqo wax aan lagu fakaraynin. qaybta xigta waxaan arkaynaa Raajo iyo Farxaan oo iyagu u cararay dhanka isbitaalka. runtii waa looga mahadcelinayaa badbaadinta maxaa yeelay wuxuu noqday paralysis. biya sidoo kale waa dhakhtar waxay ku ogeysiisay Raajo inuu wax arkayo waxna maqlayo wayna ku farxeen. runtii iyagu waxay u bilaabeen in ay markaasi wax walba awoodooda ay u keenaan. tusaale xaflad ayay u dhigeen war ayay u sheegeen ka farxiya. hooyadiis dharka ayay u gadeen ilaa wax walba oo ay u sameeyaan inta karaankooda ah. ayaa waxa dhacday maalin Raajo inuu isagu war been u sheego ku aadan Farxaan inuu guursanayo walaashiisa oo noqonayo sayga. warkaas Raajo waxay keentay inuu ka soo baxo marxaladii. ereyada koowaad wuxuu yiri beenaalayaal ayaa tihiin. kadibna waxa barbar socotay inuu soo hagaago. maalin waxa dhacday Farxaan inuu isagu dib sidii sawir qaadida warqad uu nin ka helo uu ku casuumo inuu u noqdo caawiye ku aadan inuu la shaqeeyo. aabiis ay ogolaasho weydiisay si lamidana Raajo isna waxa uu ahaa mid ka quustay. kadibna wuxuu aaday waraysi isagoo oo kuwii waraysiga ka qaaday u sheegay wax walba oo ku aadan inuu ku dhici jiray imtixaanka. sidoo kale laga soo buriyay iskoolka taasoo dadkii ka keentay in ay siiyaan shaqo. intaas kadib wada sheekaysi qiiro leh Farxaan sidoo kale aabiis uu ogolaaday dhanka sawir qaadista. Farxaan iyo Raajona waxay ahaayeen kuwo markaa iyagu baashaala. haddaba Raajo waa u tixgeliyeen marka loo eego dhanka fasalka wixii lagu sameyn jiray. si kastaba Faris oo baashi Raajo uu ku fashilmay inuu san farxad galin una cadeeyo inuu markaa qaldan yahay balse isagoo cabsan ayuu gabdhiisa u sheegay in markaa imtixaanka ugu adag uu u diyaarin doono. biya way walaacsaneed wayna u timi iyadoo oo siiya furihii labaad ee aabaha taasoo ay soo xadayaan waraaqaha. laakiin joogitaankooda biya ayaa wacda una sheegtay inay Raajo u tagtay kadibna ay soo ogaatay in ay guursanayso saacado taasoo keentay runtii in ay bedelaan maamkii ama qaabkii ay ku guuran lahayd. biya way diiday inay iyaga soo raacdo welina waxay jeceshahay Raajo oo dhinac fariisay isagoo iska dhigaysayga taasoo keentay markaa in uu Raajo isagu halka booska caruuska keeno uu ka dhaadhico ugu dambeyn ay meesha ka cararaan. martida way daawanayeen la yaab ayay ku noqotay. ka hor markaas imtixaanka Farxaan iyo Raajo waxay hayeen kuwa su'aali imtixaanka xaday balse ma doonayn in sidaa nafsadooda ay sameeyaan. way ka cabsanayeen Raajo. haddaba shaqo istubidnimo ayay sameeyeen kama aysan dhaadhicin xadida dhanka ay su'aalaha. Raajo waxa uu ahaa mid isagu diiday inuu isticmaalo Faris. haddaba intaas kadib qolka ayaa su'aalihii uu ka helay ninkii Faris ah markii uu sidaa u soo baxay dooq kalena ma aysan haysanin ku aadan dhanka iyo boorsada. haddaba ka tagistii Faris guriga uu ku soo laabtay waxa uu cadaatay wiilkiisa weynka ah inuu ku geeriyooday dhanka shilka taasoo runtii keentay maadaama Faris uu cadaadis badan ku qabtay inuu injineer noqdo. biya waxay ahayd mid markaasi xanaaqda taasoo Maayana markii ay tagtay biya uu markaa fool qabatay magaaladana wada biya ayay ahayd. Farisna isbitaal uma uusan qaadi karin gabadha. kadib diyaar ayuu u noqday inay caawiyaan. biya ayaa dhanka telefoonka ka hagaysay. Maaya ayay meel dhigeen dhanka miiska tenniska. halkaas Maaya waxay ku lahaayeen waa inaad soo riixdaa si dhaqso neef ayay u qaadatay. laakiin maxaaba dhacdayba waa in qaabka loo isticmaalo vacuum kaabka biya ayaa tusaysa si qalabkaasi ay u isticmaalaan maadaama ay awood dhigtay. haddaba Raajo wuxuu ahaa mid isagoo curiyay qalab la mid ah iyadoo waxyaabaha laga heli kara ka sameynayana ugu dambeyn way u isticmaaleen. waxayna dhashay wiil aad u qurux badan oo runtii daqiiqado una cabaadayay. markii sidaas Raajo uga tagay kadib dhalmada waxa istaajiyay Faris kadibna wuxuu siiyay qalinkii isagoo u sheegay inuu yahay arday aan caadi ahayn. su'aasha koowaad ayuu yiri waa kaaga jawaabi doonaa aad i weydiisay. qalinka beesalka looma isticmaali karo dhanka spaceka maxaa yeelay waxa dhacaysa qatar maxaa yeelay waa uu markaa qatar ayuu keeni karaa ayuu yiri. sidaas ayuuna jawaabta ku helay. ardaydina waa uu saamaxay iyadoo imtixaanka kama dambaysta la galayo. qaybta xigta waxaan arkaynaa iyagoo qalin jabiya. Raajo weli waxa uu yahay midka ugu sareeya dhanka fasalka welina waxa uu yahay mid taxi markaa raacaya waana waqtigii u dambeysay. Farxaan iyo Raajo ay sarkayaan iyagoo oo dhowr jeer isku dayay inay la xiriiraan sanado balse ay heli waayeen. hadda waxa dhacday adreeska saxda inay helaan goobtii markii ay tageenna waxayba arkeen iskool uu Raajo dad wax ku baraayo si gudagelintiina milimeter ayay la kulmeen oo weynaada. wuxuuna u sheegay Raajo inuu
iskoolkan keenay uuna isagu markaa waxbarashaha boonbaraya. qaybta xigta biya ayaa waxay kaxaysatay mootadeeda halkaasoo soo aragtay isaga oo meesha harada ku baraya kadibna wejiga ayay ka dharbacday koorinta aysan dhunkanin si dhaqso leh. Farxaan iyo Raajo ayaa kula soo biiray kuwaas oo iyaguna markaa garaacay wayna fahmi karaan saaxiibkooda in ballanqaadkii uu ilaaliyay Raanjuga saxda ah. haddaba kooxda markay dib u midoobeen Shaatuur ayaa kula soo biiray kaasoo ka xaraabaystay Raanju inuu yahay macallin isaga marka la barbar dhigo oo uu qaato 5,000 oo rubis milyaneerna uu noqday. haddaba Raanju qalinkii ayuu markaa ka qaatay Shaatuur taasoo uu leeyahay idinku waxaad tihiin kuwa ebra. kooxda waxay weydiiyeen Raajo magaciisa dhabta qof walba la yaab ayay ku noqotay in ninkan uu yahay Wandu oo ah ninkii saynisyaanka wax uriyay. Shaatuur wuxuu rajaynayay ninkaas in heshiis uu soco balse Wandu wuxuu wacay lambarkiisa isaga oo fariinta u sheegay qaybta u dambeysana Shaatuur raali geliyay kadibna sida caadiga ahayd wuxuu tusay buumadiisa. haddaba subscribe saar waa ku maasantahay daawashada muuqaalkan.